wadahadal dheer iyo wadatashi iyo falanqayn qoto dheer ka bacdi waxaa ka soo baxay go'aamadan hoos ku xusan. Lambar 1 waxaan caddaynaynaa in aanan sinaba uga mid ahayn Somaliland wax heshiis ahna aanan kula gelin kala goynta dalka Soomaaliya. 2 deegaanada SSC Khaatumo dad iyo dalba waxay ka mid yihiin dadweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waana astaan u taagan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Lambar 3 shirweynaha beelaha SSC Khaatumo wuxuu caddaynayaa in deegaanada SSC Khaatumo lagu dhaqayo xeerka iyo dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Lambar 4 tan iyo inta la dhammaystirayo aayaka tashiga deegaanada SSC Khaatumo si waafaqsan qodobka 49aad ee dastuurka ku-meelgaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya shirweynuhu wuxuu go'aansaday in deegaanada SSC Khaatumo si toos ah u tagto dowladda federaalka si waafaqsan qodobka 48aad farqadiisa labaad ee dastuurka ku-meelgaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Lambar 5 waxaan caddaynaynaa in aanan ahayn argagixiso deegaanka iyagana aanay joogin argagixiso balse aanu nahay dadkii deegaanka lahaa oo ay Somaliland si gardarro ah ugu soo duushay. isla markaana waxaanu ballan qaadaynaa sugidda nabadgelyada deegaankayaga. Sidoo kale waxaanu iskaashi buuxa oo amni la yeelanaynaa maamulada iyo deegaanada deriska ah. Lambar 6 dadkii lagu laayay muddadii 15 sano ahayd ee maamulka Somaliland ka talinaya deegaanada SSC Khaatumo waxaanu u aqoonsanahay inay ahaayeen xasuuq isir ku salaysan waxaana mas'uul ka ah maamulka Somaliland. isla markaana waxaan caddaynaynaa in dilalka qorshaysan ay la bilaabmeen imaatinka Somaliland. shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa maamulka beelaysan ee la magac baxay Somaliland in ay xushmayso rabitaanka iyo go'aanada dadka deegaanka SSC Khaatumo ee ku saleynadeeda ku sugan deegaanada SSC Khaatumo si shuruud la'aan ah. waxaan ugu baaqaynaa isimada culimada oqaasha iyo dhammaan waxgaradka reer Sheekh Isaxaaq in ay ka qayb qaataan sida ay uga bixi lahaayeen ciidamada Somaliland deegaankayaga loogana baaqsan lahaa colaad iyo cadaawad dheeraata oo saamaysa dadka walaalaha ah ee deriska ah. waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka iyo hay'adaha xuquuqul insaanka in ay baaritaan degdeg ah ku sameeyaan xadgudubyada maamulka Somaliland ka geysatay 15 sannadood ee la soo dhaafay deegaanada SSC Khaatumo. shirweynaha beelaha SSC Khaatumo wuxuu ugu baaqayaa kana codsanayaa dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamkaba inay hadda wixii ka dambeeya si toos ah ugala xiriiraan wixii khuseeya danaha SSC Khaatumo hoggaanka lagu doortay shirweynaha maadaama ay haystaan ogolaanshaha bulshada deegaanada SSC Khaatumo. gunaanad shirka waxaa lagu doortay gole hoggaan oo ka kooban 45 xubnood oo ah hoggaanka rasmiga ah ee arrimaha SSC Khaatumo. waxaanu soo dhaweynaynaa wadahadal kasta oo nabadeed haddii Somaliland ciidamadeeda si buuxda ugala baxdo deegaanada SSC Khaatumo. qodobada ka soo baxay shirka aayaka tashiga deegaanada SSC Khaatumo waa qodobo la isku raacay laguna midaysan yahay waxaa wax lagaga bedeli karaa oo keliya kulan ay u dhan yihiin dhammaan saxiixayaasha heshiiska oo ah isimada iyo uqaasha beelaha SSC Khaatumo.